doonaynaa oo daaran yahay tababarkayagani laba ujeedo ka koobaad inaanu fariinta idin gaarsiino idinka horta jiritaanka xanuunkaas oo nala ogaataan cawaaqib xumadu leeyahay nala ogaataan intayna waasibay sida loo daryeelayna aad nala barataan taa marka laga tago idinkana waxaanu doonaynaa oo idinka rabnaa fariinta halkan aad ka qaadaan iyo wax halkan aad ka barataan inaad ku xulisaan iskuulkii aad dhigayseen iyo organizationkiinii iyo guryihiinii warka waxaan ku hayaa in 20 dumara oo qaabilsan IDP-yada wacyigelinta ay saaka iyaguna inala joogaan waa wax weyn cidda ugu badan ee runtii target garaynaa inaanu gaadhno waxa weeye waa qoyskana waxa ugu muhiimsan waa hooyada habeen walba loo soo hooyanaya carruurtu soo hooyanayaan odaygu soo hooyanaya haddii ay xogta hayso oo qolo walba goonideeda ay siiso hablaha siiso inamada siiso xaajiga siiso waxaan qabnaa anagana inay gudubtay qaantii iyo fariintii qaranku noo dhiibtay talabaad ee aanu soo target garaynay amba aan ugu nimiyo inaanu doorayno dadka xanuunka la nool oo qayb bulshada ka mid ah oo walaaladeenna oo familigeena in iyaga laftigoodana aad u tababaro furtaan hadday dawaarka noqoto hadday cunto karinta noqoto iyo farsamo kale oo gabadh la bari karaba sababta aanu doonaynaa waxa weeye xanuunkan dadka wuxuu keenaa faqo fara badan dadkii xanuunkii waxa kaga soo horeynaya dhibaatada inagu aynu ku hayno qofkii waxa laga jariyay kalkacalkii wax siintii soo dhaweyntii salaantii qofka dayro noqonaya markuu dayro noqdo ma shaqo tagi karo business ku furtaa haddii uu furto xabuub yar gabadhaas isla iibi cid ka iibsan mayso haddii dukaan furto cid u geli mayso waxaanu markaas soo lagahaan garwaaqsanay dadka Ilaahay baa kafeeyay inaan dawladna kafeyn karin qofku gacantiisa wuxuu kala soo baxay muhiim tahay ee la baro xirfado dumarkiin waxa dhinac socota wacyigelintii oo dadka laga day faquuqay oo aynu fahanaa xanuunkani siyaabaha lagu qaadayo inuu siyaabo kooban waa dhacaamadii dhigaga kaliya wax lagu qaadaya haddii qofkii markaa gabadhii la baro dawaar loo sameeyo oo farsamadii gacanta la baro oo jaarkeedu ay u soo wareegaan oo dadka ka toshaan waxaan qabaa marada aad xiranaysaa inaanay dhib ku keenin waxa la inoo sheegay waa siyaabaha kooban marka sababtan u soo target garaynay ururka ama dalada naaw ayaa inaan kula soo soconno haweenka hablaheena ee walaaladeena ay hooyinkeena ay xanuun kala nool oo doonayna macallimiin hal inaad tababartaan oo ugu horeyn dawaarka oo aan doonayno si ay wala soo baxaan mutadarrigooda marka waan idinka leeyahay baraa xanuunka sida lagu kala qaado sida qofka xanuunka qaba loola macaamilo haddii markaad wax u dhigayso ee ku soo dhawaato amba iyadu ku soo dhawaato wajiga dhinaca ugu dibasta hawada lagu kala qaadayo qofka wuxuu bari karimis uu ka tagayaaba ciidaha ugu dhaweey maxay ku soo dhiirtaa waa anaga oo qolada ka shaqeysa hawsha ee komishanka joogta hawshan jiritaanka xanuunka inaad gaarsiisaan mar labaadkan inaad gaarsiisaan dadka la nool xanuunka kuma dhicin cali ilaahay waa xanuun manuu soo iibsan manuu baryeerino gooni uu soo qaadanay inaga wuu heli karaayeen in laga daayo faquuqa